adiga markaad noqoto dhinaca dawladda federaalka oo kale waxaad ka mid tahay mas'uuliyiinta deegaan ahaan ka soo jeeda Somaliland dad badan waxay uga yimaadaan arrimo la xiriira siyaasad iyo fikirkoodii isbedelay adiga maxaad ku nisbeyn kartaa arrintaas hadda halkan u timid aad u noqotay gudoomiyaha maxkamadda sare oo Somaliland uga timid aad noogu sheegi karaysaa runtii adiga ba sheegay oo ka hadlo ilaa fikirka dabcan waxa weeye waxaan aaminsanay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay wax ku noqon karto awood ku heli karto midnimada marka sababtu waa taas weey midnimada ayaad aamintay marka hore waxaad aaminsanay samaha Somaliland طبعا Somaliland waan ku koray Somaliland waan ku dhashay waxa laga yaabaa waliba waqtigii in la taan qaaday maartay waqtigii waliba ay Somaliland jirtay laakiin xaqiiqadu waxa weeye intu ay dhiirigelinaysa ummadu waxay wax ku noqon kartaa midnimada marka dabcan waxaan aaminsanahay in ummadda Soomaaliyeed ay wax ku noqon karto midnimada wadiyo maartay wanaaguna uu ku jira taas waraysi aad bixisay markaad Hargeysa joogtay adoo xisbiga wadani ka tirsan waxaad sheegtay in lagu xiray waliba meel ciidamo ay joogaan inta lagu xiray ma laga yaabo caadadaad xariga ka qaaday wadanka soo timid maya runtii xarig wala wax fudud bay runtii ahayd waxay arintii doorashada xarig waqti badan la xiray ma ahayn muddo kooban taliyaasha ciidamada meel jooga lagu xiray marka xariguna wax maaha la bedeli kara qofka bini'aadmiga mabdiis cid xariga ku xiraysan hadii xarig mabdaaga ma bedeli karo marka taas runtii wax saameeyna gebi ahaan kuma laha mowqifkayga iyo aragtidayda iyo raayigayga midna wax saameeyna runtii kuma laha markii aad halka joogtay mad aaminsanayn Soomaha fikirka hadda aad aaminsan tahay midnimada qofku waqtiga fikirka qofku isbedeli karaa markasto oo qofku xaaladda iyo waaqicda qofku fikirkiisa waa bedeli karaa marka maalintaas uu bedel ma oran karo laakiin dabcan waxa isla qofku xor buu yahay inuu waqti fikirkiisa iyo aragtiisa iyo mabdiisa inuu bedeli karo maxaad isleedahay rag badan adiga kulamada Hargeysa inta ka yimaadaan bay bartan xilal ka qabtaan ay yimaadaan dadku maxay la soo socdaan bay kula tahay أنا waxaan aaminsanahay qofka halkan imanaya xilka qabanaya waxa weey waa qof aaminsan mabda'aasna uu yahay midnimo tuumanayana waa taas wagaag gudoomiye ka hor xilkan aad qabatay weliga garsoore maxkamadeed ma noqotay garsoore ma noqon laakiin waxaan ahaa qareen ku shaqeystay qareennimada ku shaqeeyay sharciga waliba muddo dheer muddo 10 sano adan weliga garsoore noqon inaad haddana mar qura gudoomiyihii maxkamadda sare ee Soomaaliya lagu magacaabay maxaa dareemaysaa shardi ma aha qofku inuu noqdo garsoore waxa jira haddii aad akhrido xeerka nidaamka garsoorka qodobka 22 wuxuu dhigayaa in loo magacaabi karo gudoomiyaha maxkamadda sare qof ahaa lawyer ahaa bare jaamacadeed intaba marka runtii lawyerna waan ahaa muddo dheer baan ku shaqeynay waliba qaybo kala duwan aan kaga shaqeynay bare jaamacadeedna waan hayo qaanuunka ka dhigay jaamacadda ay Hargeysa muddo 5 sano marka dabcan shuruudihii looga baahnaa ee xeer ku jideynay dhamaantood waxaan aaminsanay inaan buuxiyo xisbigaagi wadani hadda saas ka tihiin aad ka timid Somaliland runtii xisbigii waxaad ogtay anigoon halkan iman baan xisbiga iska casilay oo waxaan filayaa inaad aragtay casilaadii aan u gudbiyay anigoo Hargeysa jooga oo aan maaragtay halkan marka xisbiga waan ka tagay waqti hore bahda garsoorka Somaliland sidaas uga warqabtaan ama ma iska warhaysaan garsoorka Somaliland runtii waxa la xiriiraa xaaladda Somaliland waxa Somaliland iyo Soomaaliya inteeda kale waxa la rajeynaa in wada hadal la bilaabmaan oo arrimaha dhexdooda yaala in lagu dhameeyo qaab wada hadal ah marka runtii taas un bay wax la qabtaa nidaamka garsoorka Soomaaliland hadda uu dhisan yahay aragtidaada ku aadan maxay tahay arrinta Somaliland runtii waa arrin u baahan sidaan sheegay in lagu xalliyo wada hadal dhexmara labada dhinac marka arrinta waxaan u daynaynaa intay hawshaas dhamaanayso